وهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب يالكسو دوادا ومركيني عشر كيني لواد كسابسن ووردبريس كان عشر كواد waxaan ku soo baranay sida wordpress loogu shubto computerkaada gudihiisa sida wordpress loo soo degsado sida wordpress environment-giisa loo abuurto sida wordpress local host ugu kaco sida database loo abuurto MySQL sida MySQL database la abuurtay iyo wordpress sida isku xiraayo sida wordpress habada loo saar waxyaabahaas oo dhan cashir koobaad ku soo baranay cashirkeena labaad insha Allah waxaan ku baran doonaa hadoo aan yiraahdo sharaxaad ku saabsan dashboard-ka qaybihiisa waxyaabaha hoos imaado qaabka loo isticmaalo iyo sida ay muhiim u tahay qaybta dashboard-ka markii wordpress gudihiisa la galo aan ku baranayna cashirka labaad hadoo aan yiraahdo waa markale isku soo noqod wanaagsan engineer Abbas Maxamed walaal Abbas web designer ayaa casharada idin soo gudbinayo iyo Gooltaga Academy marka koowaad aad soo daaratid computerkaada waxa fureysaa Zamba fureyna ana hadda Zamba taskbar ku yaala bas duusan taskbar ku yaala oo computer gudihiisa ku jiro si fudud waxa qoreysaa Zamba qoreysaa wada aniga waxa igu jiro Windows 10 igu jiro هسه كمبيوتر كدو ويندو 8 اما ويندو 7 كوجو جiro xitaa waa la mid meesha search waxa ku qoreysaa Zamba markuu ku soo qabtana ama apps leedahay adigu Zamba leedahay Zamba markuu ku soo qabto keega hadda waxyaabo kale ii dirdiro markuu ku soo qabto kadib right click leedahay kadib add to taskbar leedahay marka hadda waa kana taskbar ku yaala marka click aan siinaa waxaan rabaa Zambaha in aan daarto start aan dhaho MySQL kan start aan dhaho hadda labadooda start dhihin aad bilaabin waxa dhacayso in waa hadda internetka ay furan waxa dhacayso in uu isku diro oo Google-ka ka raadiyo marka taas u dhicin oo local host-giisa oo internetku qaadanin pages start aan leeyahay bilaw sidoo kale MySQL kan waxa la start soo marka local host daa qoro computerku wax ka raadina balse daanan start abaji dhihin wuxuu sameeyna local host hadaan qoro wuxuu sameeyna Google-ku ka raadina marka mar walba Zambahadan ku kacsanaana marka orarkaas oo fogaatid waxa leedahay intaan shaqo bilan kooda hore waayo anaga hadda wili ma gaarin insha Allah waan gaari doonaa waxa filaa cashirada dambe inay tahay sida WordPress live loo saaro website live wili hadda waxaan ku jirnaa local host-ga iyo basic bilowga markaas u daarto kadib waxaan imaanaa browserka kaliya aan kacsana markaan kacsado kadib meesha URL-ka waxaan ku qoraa sida cashirkii koobaad aan soo marnay kale local host markaa dhaho kadib slash waxaan sheegaa folderkii oo WordPress ugu shubnaay hadaan Gooltaga ugu jira local host Gooltaga kadib waxa leeyahay enter markaan dhaho kadib waxa ii soo kacayo cashirkeeni koowaad WordPress-kii aan cashirkii koowaad aan ku diyaarsaday aan soo kacayo ujeedin hadda welcome to Gooltaga Academy waa title-ka ujeedinay ana hadda wili icon ma siinin sadarteeda iconka oo local host ama iconka Zamba oo qaadana bas icon waan siinayna insha Allah waxa loo yaqaanaa favorite icon Allah iconkaas oo wax oo browser-ka soo muuqanaa soo marka waa kana WordPress-keeni waa sida default-ga ahaa waaye ujeedin powered by WordPress top add kaasa hello world and category waa marka ugu horeysa sambuul soo marka hadda kan website-ka caadiga waa markuu soo soo kacay waaye waxaan rabaa in aan galo adminkiis inaan gal gudaha inaan u galo aan rabaa soo marka tan waa muhiim oo waxa adoo computerka hadda ku shubatay computerka xitaa waa ka access garay kartaa haddii aad haysato internet kaas markuu live yahay hadda kan balse local host waa maadaama computerkan hadda noogu jiro waxaan rabnaa inaan qaybta adminkiis aan galno waxaan leeyahay kadib marka horta oo sidaan yahay kadib waxaan ku qoraa waxaan leeyahay /wb gtin admin
sida aan hadaan usoo sheegnay WP jiitintan waa prefix uu WordPress table wato marka waxaa ku galaysaa login page oo WordPress waxaa ku galaysaa WP jiitin admin login page oo WordPress laba qaab oo laga inaad WP jiitin admin aad ahdid iyo sidoo kale inaad WP jiitin login.php iyadana waa lagu galaa marka WP jiitin admin kadib inter leeyahay inter marka kadib wuxuu igeynaa screenkii ama shaashadii wuxuu igeynaa WordPress loginkii waa kana WordPress iconkiisa gadaalaan ka bari doonaa insha Allah sida iconkan WordPress meesha loogu dejiyo username iyo password ujeedaa username-keega soo abuurto kana soo akhriyo qoon iyo password-kii aan ku soo markii WordPress ku shubay aan soo yeeshtay kadib marka password-kii iyo username-kii asaas u geeyo waxaan leeyahay login aan leeyahay login marka dhaho kadib waa kana qaybtan dashboard waa kana uu isoo kiciyay website-ka daaraw inaan arko title-ka kortaga view site-ka right-kii laga leeyahay open link new tab leeyahay website-ka waa kana hadda ujeedin customize iyo add new post page waxaan ku dar waayo hadda how they admin-ka ah macnaha hadda website-ka wax baan ka bedeli karaa gudihiisa oo kale marka insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dashboard waxaa la lahaa intaana lahaa macnaha intaana sharaxeena cashirkan labaad aan ku sharaxeena insha Allah kadib cashirka saddexaad waxaan u gudbeena sida theme iyo wax la mid ah marka insha Allah haddaan ku bilaabo dashboard inta home mar walba home waxa waaye meeshaan qaybta ugu horeyso waaye updates maxaad ku ogaanaysaa waxyaabaha oo update ku ah ama WordPress ku soo kordhay hadda inta ugu gudbino inta daa'imaana posts waa dashboard-ka sharciga posts qaybtan posts-ka waxa adeegsanaysaa marka rabtid inaad post asartid hadda all post hadaan open link kaliya dada open link new tab aan ku dhufto all post waa kana halkan post oo waxa ugu jirto oo hello world waa kana kan isaaran waaye waa kana post-ga hello world waa kana marka hadaan rabo marka post cusub inaan ku daro admin waa leeyahay all posts qabkaas insha Allah waa arkaynaa cashirka afaraad inoo yahay umaleena ama lixaad sida post iyo loo sameeyo categories waa arkaynaa category iyadana waxaa la isticmaalaa qaanad waa macnaha qaanada aad u rabtid in waxaan ka soo muuqdo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa website-kaada inuu yahay website warar oo kale aan ka dhigo sid warar siyaasad warar ciyaaro warar dhaqan warar deegaan wax la mid ah marka waxyaabahaas oo dhan category u sameysanaysaan markaas category-gaas abuurtay kadib post-iga markaad aad abuurinaysid tusaale ahaan hadda admin oo kale hadaan dhaho post-iga markaad abuurinaysid aad qoranaysid kadib waxa u baasaysaa qaanadii aad soo abuuratay tusaale ahaan oo kale dabcan post-iga inta title-ka qoray intana waxa ku qoraysaa baadigii waxyaabaha aad inuu ka soo muuqdo kadib community hadaan dhaho meesha marka waxa noogu jiro categories-kan meesha marka waxa ku soo galayo category-yadii inta ku soo abuuratay ku soo galaa marka post-igaas category-ga ku dhufanaysaa kadib post-iga wuxuu sameeyaa category-ga taas waxaad arkayna insha Allah admin wasaas waaye categories-kan saas waaye qaanadahaas oo hadda open link new tab aan dhaho waa kana aan categorize hadda kana default ahaan u abuuran ujeedin wax dileedna ma laha waa default-giis waa macna category hadaro meeshaan aan abuurana kadib marka abuurto kadib post-igana imaana category-gan u baas gareeyaa leeyahay oo markii aan qorto category-gana jeega saara macna oo marka dhul wuxuu sameeynaa marka hadalkaas wuxuu ka soo muuqanaa category-gan oo ka soo muuqanaa qaabkaas waaye waa arkayna insha Allah posts iyo categories iyo media waxaan isticmaalaynaa haddii aan rabno in aan wax soo upload gareyno adnigu waxa wax cusub marka computer-ka aan ka soo akhrinayna ama sawir ha noqdo ama video ha noqdo marka soo upload gareynayna isticmaalaynaa adnigu library waxa aan horay WordPress aan u soo gashtay library-ga iyo galayaan macnaha waa doodii library hada click dhaho library wax ugu jira marka maxay waxba ma soo gashan macnaha haddii sawiro iyo video hore website ku soo gashtay library-gaas ay galayaan ameeriyahan qaabkaas u shaqeeyaan
haddaan u imaano pageska waxaan filayaa inaan ku fahmi doono cashirka afraad meelahaas camal inaan si fiican ugu sharxi doono. hadda dashboardka dabcan aad dulmarooya meesha aan ku jiro dashboardka waaye pages daawo imaano meeshaan pageska laga abuuro all pages. hadda right new tab dhaho oo all pageska aan fiiriyo waxaa ujeedaa meeshaan waxaa igu jiro sample page, privacy policy kan waxaa waaye default waa wordpress kushuban iyo mid sample iska. so marka daaraw inaan page cusub abuuro add new aa leeyahay. add new markaa dhaho kadib page cusub magaciisa qoraa kadib waxaan leeyahay publish aan leeyahay. markaa raw inaan page cusub aan ku daro waaye pages kan qaabkaas u shaqeynayaan. pages iyo posts farqiga u dhaxeeyo insha Allah cashirka farada si fiican ugu fahmeen. hadda la yiraahdo pages waxa waaye waa fixed waa macnaha oo tusaale ahaan oo kale waxa adiga aad design gareysatay ama qaabka adiga aad u dhigatay ay ku noqonayaan pageska. bas posts waxa waa dynamic waa macnaha mar walba isbedbedelayaan. so marka waxa laga yaabaa maalinta inaad sameeysid tusaale ahaan oo kale 3 post ama 4 post. so waxaas isku bedbedelayo waa posts-ka waaye bas pageska meeshooda ku taagnaanayaan waan arki doonaa insha Allah. comments-ka hadaan u imaano comments-ka waxa waa website hadda post sameeysid oo kale waxyaabaha comment laga soo dhiibanayo meeshaan ay ku galayaan macnaha wordpress commenter. hadda waxa waaye default waaye hi this is a comment default waaye waxa arkaysaa in hadii macnaha tusaalahan oo kale post aad sameeysid ama sida caadiga wordpress-ka add a comment ku qoran postiga gadaashiisa. so marka qofka marka comment meeshaas ku soo qoro oo soo diro meeshaan ka arkaysaa. marka meeshaan marka waxa ku qoran an approve, reply, quick edit waxaas oo dhan ku qoran. marka commenting marka meeshaan binding oo soo leeyahay inta marka approve ka leedahay waxyaabahaas oo dhan inta ka leedahay. marka soo marka commenting qaabkaas u shaqeeya waan arkaynaa insha Allah. haddaan u imaano appearance dabcan waa meesha ugu weyn ee shaqada ay ka dhaceyso dashboardka. inta waxaa ku jiro themes markaa rabta inaad theme cusub aad kusoo darsatid oo kale iconkaas isticmaalaysaa. themes aa leedahay themes markaa dhahda kadib add new haddaa mid cusub aad kusoo darsanaysid waa kuna anaga hadda kanaan ugu shuban macnaha active midka kugu shuban waxaa ku fahmaysaa active oo leeyahay macnaha hadda active 2020 kanaan ugu jiro macnaha ebel midkaana ahaay 2019 midkaana defaultiga ahaa bas markii 2020 uu bilowday wordpress-ka kana loo guuray macnaha theme kana loo guuray 2017 kana la isticmaalay oo defaultiga iska nooca. marka themes qaabkaas waaye customize waxaa leedahay theme-ka marka customize gareynayso logadiis iyo menus iyo waxaas asaasayso arkeenan customize hadaan hadda aragno waa itus taabsiyan sameynayna insha Allah. wax walba waxaan jecelnahay wax walba sheegayo koorsada inta socoto ina aragtiin qaabka u dhacayo. customize hadaan dhaho kana customize ko wada welcome to Goltech Academy site identity. inta site identity daan dhaho waxaa laga bedelaa loogada laga bedelaa site title waa kana hadaali welcome to Goltech Academy. tagline just another wordpress site ay u qoran hadaan hadda just another wordpress site aan tirtiro aan dhaho this is education platform waayahay hashtag waxay iga noqotay capital iga noqotay this is education platform. tagline macnaha waxa waaye wuxuu xoojinaa title-ku xoojinaa. retina logo waa muhiim. retina logo waxa waaye loogada device-yada yar macnaha screen-ka yar oo ah sida mobile-ka kale smartphones ko kale iyo waxyaabahaas retina logo laga saxo oo mar waxa dhicaysa macnaha adoo logo select logo loogada inta ay ku sahamatay waxa dhicaysa inuu mobile ka soo muuqanin. marka si uu mobile-ka ugu soo muuqdo retina logo leedahay. retina logo marka qaabkaas waa site icon-kan waa meesha idin sheegay hadaan tusaale ahaan oo kale aan bedelno select site icon select files aan dhaho icon-ka oo waxaan ka bedelaa
وصارن ايكونكا حافلا انه ايكون ميلهان يجرو وكنا ايكونكا دا اوبن اهو سو قشتو عنده كتب سلكتي عنده كروب ايميج عنده وكنا وحو يكورا وكاس وحو بدلي كدب waxaan leeyahay publish aan leeyahay marka website-ka u laabana waxaan leeyahay refresh aan leeyahay si mar walba isbedelka waayahay publish-ka inta wili wadaa waata sababta oo refresh-ku igaaga soo dhacay waay marka waan sugaa ilaa publish-ku ka dhameeyo waa kana hadda publish-ku dhameeyay hadda website-ka da u laabto aan refresh aan dhaho akaasa waxa muuqdo site icon-ka inuu isbedelay this education platform tagline ka soo sameeyay marka customize appearance customize qaabkaas waay hadaan u imaado widgets oo iyadana sharaxaad kale rabto widgets waxa soo galay waxyaabaha wordpress-ka uu leeyahay waxyaabaha website-ka uu leeyahay footer-ka widgets waxa galo footer-ka iyo sidebar marka laba dhinac waaye ama inuu noqdo right sidebar tusaalahan dhinacaan oo kale inuu maro right sidebar waaye tusaalahan hadda blog oo kale hadda ku dhufto blog hadda wax widget masaarna saate kuwan widget waa hadda soo widget find the address about this waxaan widgets waa ama inuu footer-ka footer 1 footer 2 hadda laba footer la dooran waa sababta footer 1 iyo footer 2 isoo qoray footer 1 oo about this side iyo footer 2 oo find the address labadaas ay waxaysan kan waxa loo yaqaan xariijinta hoose footer bar loo yaqaan marka widgets waxa sharxa footer-ka iyo sidoo kale sidebar-ka hadda deemkan wax sidebar ma laha u jeedo asaat ana hada deemkan waan ka guureena insha Allah oo default-ka sharxaad oo waxaan ka wadaa inaad fahantiin widgets qaabkaas u shaqeeyaan si fiican aan u sii fahmi doonaa hadii la yiraahdo qaabka uu si shaqeeyo hadda daaro about this side oo kale ina waxyaabo aan ku soo darsado hadaan rabo ina text oo kale aan ku soo darsado waxa imaana waan soo jiida drag and drop by line wordpress-ka waxaan tagaa koraan tagaa kadib text-ga hoos keenaa meeshaan text-ga oo ku qornaa tusaale ahaan oo kale inta qorto welcome to go take academy hadaan text-ga aan soo qorto aan save aan dhaho aan dhan dhaho kadib waxaad arkaysaa in widgets-ka laga arkayo footer-ka text-ga soo qoraa kana mujida welcome to go take academy marka widgets qaabkaas ay qabtaa hawshaas ay qabtaan ayaga shaqooyinkooda waxa waaye laba waaye footer-ka iyo sidebar-kan laba si kala waaye right sidebar iyo left sidebar marka hadaan u imaano menus-ka hadaan u imaano qaybta menus-ka meesha ugu badan oo iyadana wax ka saxdiid hadda menus-ka intaana ay sameeysan home about blog waxyaabahaas ay sameeysan hadda ujeedada website-ka in ku laabtan oo kan kor aan geeyno home markana menu intaana ay sameeysan macna so marka menus ku aqoon qaabkana la dhahaa hadaaro ina arrange ku sameeyo waajida ay la kala kormarina qaabkaas arrange oo sameeyay hadaaro ina sub menu aan ka dhigo asiga la hosgeena kadib waxaan leeyahay save menu aan leeyahay save menu marka dhaho website-keena da u laabano refresh dhaho muxuu sameeynaa kana ujeed sub menu iyo abuuro soo mid sub menu qaabkaas loo abuurtaa insha Allah arkayna hadda rabtid menu-ga marka location keys inta laga saxaa kana desktop horizontal menu mobile menu footer menu social menu menu-yada oo kala bixina macnaha deemkan marka hadaan rabo inaan menu-ga wax ku soo daro meeshan view oo la imaana wixii aan rabo inaan ku soo daro aan dooranaa markaas u doorto hada sample page oo kala ku jir markaas u doorto kadib add to menu yaa leeyahay add to menu marka dhaho kadib save menu yaa leeyahay qaabkaas menu waxa uu daraa hada refresh dhaho waxa uu soo darsamay sample page oo kala uu soo darsan menu qaabkaas u shaqeeyaa background in hadaan u imaano
background madaa maano siga حواي background image uu yeelanayo website uu yeelanayo dabcan background kiisa hada qaabkan background qaabka uu muuqanayo macnaha hadda website aan ku laabano waxyaabahan hadda saaran sabi waxyaabo iska sample waa ilaa wadeemka default marka background image waxa background au yeelatid ana hadda sawir waxba ma uro marka dashboardkeena noo celi theme editor qaybtani aad ay sensitive u tahay iska fiiriye macnaha waxa loogu talagalay theme editorka inay wax ka qabtaan ama wax ka beddelaan dadka expertiga ah oo si fiican u yaqaan WordPress-ka iyo PHP coding-ka ama si fiican u yaqaan oo kan asaga ku dan macnaha heads up oo ku dhaw ku duga macnaha madaxa kor u qaado ku dhahay meeshan wuxuu ku dhahay waxa loogu talagalay in dadka expertiga ama yaqaan inay wax ka beddelaan haddii aad wax ka beddel isdhehaysid ama code yaro meel ku qoran ama wax yaro meel ku qoran aan ka tirtir isdhehaysid waxa dhicayso in website-ka dhan uu down noqdo macnaha website-ka dhan ka damo u crash dhaco soo marka crash ka soo fogaatid qaybtan hab isku dhawaan macnaha theme editor ama haddaad wax ka beddelaysa mar aad taqaanid ha noqoto laakiin hadda Go Bank dad dib u yeelin I understand dadina kanu ku fasaxa waxa laga yaabaa xaraf yar hadda meel ka tirtin website-ka dhan down oo noqdo meeshan waxa ku jirta ujeedid failashan website-ka weeyaa marka theme editor-ka ma taabanin Go Bank leenahay pluginska weli waxaan ku jirnaa sharaxaada dashboard-ka pluginska waa kana asigana waxaan la isticmaalaa markii oo waxyaabo horta aan kala bixino themeska pluginska waxa waa website-ka layout-kiisu waa guud ahaan website-ka qaabka u yaalo sidebar-diisa qaabka uu muuqanayo menu-ga postiyadiis qaabka uu muuqanayo footer-ka qaabka uu muuqanayo badiga dhexdiisa qaabka uu muuqanayo waxyaabahaas oo dhan waxa qaabilsan themeska qaabilsan macnaha theme waxa waa layout macnaha waa guriga waa theme pluginska balse waxa waaye waa qolalkii guriga qolalkiisa iyo daaqadiisa kale pluginska wuxuu qabtaa tusaale ahaan oo kale hadaa rabtid inaad website-ka aad ku soo dirtid hadaa rabtid inaad ku soo dirtid oo kale post oo marka u dambeysay soo bandhigmayo plugins lagu keenaa hadaa rabtid oo kale inaad ku soo dirtid slider oo kale hadaa ku soo dirtid meeshan waxa u jeedaa waa slider ma noqdo balse darabno inaad kale area-dan oo kale inaad slider aan ku soo dirsano waxaa jirto plugin oo loo isticmaalo slider-ka plugins leedahay admin waa leedahay admin marka dhahdo kadib waxa ku soo dirsanaysaa pluginkaas slider-ka pluginka slider-ka loo isticmaalo waxa la dhahaa smart slider dabcan waan free ku pluginada slider-ka badankooda lacag u hayn bas free-ga aad u fiican sida hadda pluginkan oo smart slider-ka la oo kale slider-ka loo isticmaalaa waan free waa kana minna smart slider 3 install kaasa ku shubanaysa marka wuxuu ku qabanaa marka in slider sawir slider ku soo dirsan karto website-ka marka pluginska qaabkaas u qabtaan plugin editor waxa waaye waxyaabaha uu kumeyn sida hadda aad soo arkayno kala theme editor hadaan plugins qaabkaas ugu soo baxana hadaan imaano userska userska meeshan all users oo kale waxa ku arkaysaa website-ka userada uu leeyahay hadda halkan user noo abuuran oo admin noo abuuran email-kan waa kana role-kiisa waxa administrator macnaha user-kan admin waa hadaa rabtid marka mid cusub inaad ku dirtid waxa leedahay admin waa leedahay tusaale ahaan oo kale inta waxa ku qoraysaa username-ka magaciisa email-ka username-ka uu ku galayo email-ka first name last name website-ka password-ka inta ku qoraysaa mujeda soo galayo marka meeshan uu nimsa fiiri role admin hadaa dhahdo qofku wuxuu la mid noqonaa qofka user u abuurtid qof hadaa user u abuurtid oo admin aad dhahdid wuxuu la mid noqonaa qofka administrator wuxuu la mid noqonaa admin oo website wax buu ka bedeli karaa wax buu website-kaada dhan uu hawada ka wada bixi karaa ilaa aad dhahdo admin uu access garan karaa marka sida caadiga waxa la dhahaa subscriber waxa waaye sida qofka soo booqanayo limid yahay macnaha sida qofka soo booqanayo limid yahay hadduu xitaa meel username iyo password uu ka soo geliyo uu soo galo waa iska caadi waxba ma ka bedeli karo website-ka macnaha
contributor jiro author jiro editor jiro tusaalahan oo kale editor waxa isticmaala waxa loo fasaxaa kaliya post iyo waxyaalahaas loo fasaxo inuu website wax ku qori karo administrator oo adminka iyo subscriber labadaas shaqeeya subscriber waxa waaye qofka tusaalahan email subscription oo kale markuu ku dhufto subscriber la leedahay هدارت مركا تصالحان وكل ويب سايت كو waxa isla maamulaysiin 5 qof ama 4 qof isla maamulaysiin dhamaantiinana waxa rabtiin in web site kan wax ku soo qortiin si joogto ah si fudud marka inta user ugu dardaray marka user ugu dardaray kaliya role kana waxa siinaysa administrator hadaarta kaliya inuu meesha wax ku qoro la hadaartid editor leedahay waa ka qaabkaas u badinaysa admin hadaad aadidna admin waybo website wax ka bedeli kara marka dhimays admin user leedahay kadib profile kaada meeshaan aad ku akraysaa meeshaan hadda leaf iga dheh waayo ani wax ina user wax ku dardar marabi kana profile ka soo jeedid admin hadda kana abuuran username-ka kana waxyaabahan abuuran user qaabka soo haddaan u maano tools badana qaybtan ma la isticmaalo barkay maxaa yeelay wuxuu ka hadlaa macnaha available tools oo kale tools oo la heli karo waxyaabaha soo hay import hadii aan sameeyo oo WordPress daan soo gashanayo kale WordPress da soo darsanayo WordPress cusub daan soo haysanayo kale waxyaabaha soo hay marka tools hadii uu plugins uu ka soo galo isticmaalaysa hadii kale sidii soo dhaaf hadaan u maano settings iyaduna muhiim intaan qaybood uu leeyahay ujeedi general writing reading discussion media permalink midmida u sharxayna insha Allah general waxa hoos imaanayo site title key iyo tagline key iyo address key URL keys waxyaalahaas oo dhan hoos imaanayo site title inta ka bedeli kartaa site title waxa aragnaa marka laba meel oo laga bedelayo ama ina ka bedeshid customize site identity ina dhahdid ama in aad ka bedeshid meeshaan general settings site title aad ku qortid and welcome to Gold Tag Academy oo qoran meeshaan jeeda aan capital ka dhigo intana aan eeda capital ka dhigo waayahay control plus shift rabi inay shift aan rabaa in eeda capital noqoto waayahay keyboardka waayahay tagline waa kana site address URL kiisa waa kana emailka membershipka waa kana anyone can register marka adeeso markii aad rabtid in dadka subscription-ki waxyaabahaas oo dhan website-ka la yaqaan new user cusub oo isdiiwaan gelinayna subscriber role-kiisa ahaada leedahay waayo adaa qofka admin wax ka dhigi kartid ku ahaado time zone UTC plus oo ku sameeysan saacate waqtigan hab Soomaaliya oo kala Muqdisho waqtiga waxa waa UTC plus 3 waa macna plus oo waqtiga plus 3 hadaad bas computer-ka saacadiis hadda waxa waa 10 saac iyo 39 PM waa marka UTC plus 3 hadaad website-ka saacadiis wuxuu noqonaa saacada computer-ka waa kaasan UTC plus 3 aan dhahay kadib waqtiga maalmaha weekka ka bilowda dhahay Saturday ayagu waa Monday leeyahay isniinta markii maxaa leh gaalada isbuucooda isniina u bilaabmato macnaha oo ahad iyo fasax leeyahay sabti weekend u yaqaanina saacatay anaga muslimiin saawnahan waxa isbuuco noo bilowda Saturday oo maalmaha fasaxa waa Jimco soo markaas oo badish safe changes safe changes marka isbeddelku qaadanayo aad ujeedid kana local time is waa kana ku sheegay soo ujeedid 10 saac iyo 40 kana saacad computer-ka 10 saac iyo 40 local time is universal time kan iga dhaw universal UTC plus 3 time zone doorniso general focus hadaan u maano writing hadaan u maano writing ka waxa waaye category posting meesha uu aaday direct ina ka saxo login name-ki hadaan saxo waxyaabahaas waaye writing badanaas u baahan reading aad loo isticmaalaa reading hadaa imaado waxa waaye
home page ki meesha ka badana website-yada sida caadiga marka koobaad deemka default ku shubtid iyo latest post saaraya marka waa laga qaadaa static page la doortaa kadib page ka home ka la doortaa hadan kan new or mama opens it doors front page ka blog pages show at most inta waxa way blog pages ka tusaalaan oo kala hadan blog adan ku dhufto hadda blog post wax buu ugu jiro halkan post ay ugu jiro bas meeshan fiiri 10 waa dhahay 10 hadda dhahan 10 post kadib waxa isku diraa waxa loo yaqaan pagination ah page kala wadna uto marka 10 badana waa laga yareeyaa maxaa yeelay ilaa 10 inuu qofka scroll sameeyo xogaa la caajisa lix iska leh kadib search salaamne reading qaabka soo hadaan u maano discussion asigana qaabka commenting loo sameeynaayo iyo ayawahaas waaye sidoo kale avatarka iconka hadda fiiri admin iconkana aysan bas daartin iska bedeshido kale waxyaalahaas loo isticmaalaa marabna waqti badan ku lumino waayo video in badan cashirka in badan socdaa maadaama dashboard dhan la sharxayo ka gudbayna thumbnail size sawirka marka soo gelinaysid thumbnail default giisa 150 inuu noqdo macna hadaa rabtid inuu xoogaa size weyn inuu noqdo meeshaan ka bedelaysaa yaa size kuna ilaatay 4 kan sidiisa afaysan uploading sidiisa barmalink muhiim waa asagana barmalink waxa waaye kan waa macna fiiri barmalinkigan local host gold.blog barmalink allah soo ujeedid hadda waxa inoo dooran day and name aan dooran oo ah bisha koowaad la afarteeda iyo post magaciisa aan dooran bas badana barmalink si caadiga waxa laga dhigtaa post name la dhigtaa post name la dhigto muxuu sameeynaa mar walba wuxuu israacinaa URL ka website-ka ilaa ay post-ga ciwaankiisa israacinaa falaan post-ga hadda hello wal maaha meeshan wuxuu leeyahay gold.sample post oo ah hello wal ku jiro post name asaas loo doortaa kadib waxaan leenahay save change saan haddaan maamkan u dambeeyo ah privacy policy waxyaalahaas waaye page cusub oo privacy sameey this page ka isticmaal asigana waxaas ma ka bedelay collapse menu waxa waaye dashboard-ka marka collapse asan geynaa balse waxba iyo collapse green sidiisa hore u celiyaan leeyahay arday marka dashboard ka sharxaadiisa dabcan waqti badan ay qaatay intaas aan kusoo gabaynayna insha Allah dashboard ka mid u istaagnay home waxaan dhahnay waxa waaye markii dashboard ka bilawgiisa agtigiisto home updates wordpress waxyaabo ku soo kordho posts marka postiisa sameynaysid media markii asabir iyo video wax soo dirsanaysid pages marka awareness comment appearance waxaan oo dhan mid u sharxay videogan haluu la laabta hal barnaamijka insha Allah wixii su'aalana oo ku saabsan dashboard-ka waa ay soo dir kartaan oo cashirka labaad ah marka meeshaas waxaan ku soo keenayna insha Allah cashirkeeni labaad oo ku saabsanaay dashboard-ka sharxaadiisa waa markale anoo ah Abbas Maxamed Walaal Abbas designer oo idin soo iyo Gold.tag Academy idin soo gudbinayna cashirkii WordPress cashirkeeni aha WordPress intaan ka kulmayna cashirka saddexaad insha Allah cashirka saddexaad waxaan ku qaadanaynaa sida Astra theme ama theme free ah sida loogu shubto inta ka horeyso waxaan idin leenahay practical wixii su'aalaha insha Allah waa ii soo direysaan dad aliiraahdo oo email-kayga oo walaalta.gmail.com ay ugu soo direysaan intaas ka horeyso waxbarasho wanaagsan iyo dadaal waxaan idin leenahay